boqor Raabi Yuusuf Cabdilaahi oo kamid ah bahda dhaqanka ee waaweyn ee reer Soomaaliland oo telefishinka bulsho waraysi ku siiyay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay shir qaar kamid ah beelaha Soomaaliland ugu soo gabagaboobay deegaanka Gacan Libaax. boqor Raabi Yuusuf Cabdilaahi oo wax ka weydiiyay sababta ay beeshaasi ugu soo casumi weyday qaar kamid ah beelaha Soomaaliland shirkaasi ayaa igu jawaabay. bismillaah aad baa u mahadsantihiin way jirtaa beeshu shir bay qabsatay shir weynihii Gacan Libaax ka dhacay danaheedana kaga arinsanasay iyo wacyiga ka taagan dalka mudana boqor qodobbada shirka ka soo baxay dadku si kala duwan bay u faaqideen bal qodobadaas nuxurkooda waxa weeye shirka beelaha garxajis ay ku qabsadeen buurta Gacan Libaax oo ahaa waxyaabihii ka jiray dalka Soomaaliland oo runtii systemkii loogu talagalay la leexiyay oo wixii lagu heshiiyay 1991kii la baalmaray ay kuna heshiiyeen laba beelood oo hagbad la baxay amba se jeegaantaas wixii laga yeeli lahaa bay ka tashanayeen dadku boqor Raabi sidoo kale xukuumadda recommendation iyo waxa siisan amaro aad tiraadeen waxyaabaha xasan khaldaha la toosiyo madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumadda ma gudbisay waxba ma naansiinin madaxweynena uma aqoonsanna waxaan u aqoonsanahay nin jeegaanta isagoo maamulkeeda u haya laakiin waxaan tusanaa Soomaaliland wixii la wada lahaa inuu leexday Soomaaliland baanu wax u sheeganay inay jeegaantu wax qaloocisayna waanu sheeganaa taanu ka tashanayna waxay ahayd jeegaanta wixii laga yeelayo haddii ay ku soo noqon weydo madashii la wada lahaa iyo wixii lagu heshiiyey wad ogsoon tihiin saxaafadda ka mid tihiin dalku sidoo loo leexiyay dalkii loo soo halgamay loo dhintay naf iyo maalba loo waayay inay laba reer ay u heshiiyaan boobka ummadda Soomaaliland ka dhaxaysa marka waxaan u sheeganaa Soomaaliland inteeda kale inay wax iska weydiiyaan oo dulman iyaguna annaguna waxaan ka mid nahay beelaha dulman runtii wixii lagu heshiiyay 1991kii aynu ku heshiinay dalkii loo soo halgamay ay leexiyeen labada reer ee hagbada la baxay amba se jeegaanta abtirsiinta gaarka ana u sameeyay aad arkasay saxaafadu ka wada warqabto la ajligeed ba beeluhu ay u tashanayeen waana u tashanayaan ogeysiin baanay naga ahayde cid aanu u taganay cid aanu wax ka suganaa midna ma jiro ugu dambeyntii waxaan ku weydiin lahaa Soomaaliland oo waxay falanqeynaysaa gabagabadii shirka beeshu lahayd kumeedaan soo casuumin laba beelood oo ka tirsan beelaha waaweyn Soomaaliland dadku wax isweydiinay maxaa loogu soo casuumi waayay beelahaasi maadaama beelihii kale reer Soomaaliland ku soo casuumteen taa maxaa oran lahayd boqor ma santahay waa su'aal wanaagsan weeye labada beelood waa labadii beelood ee qalloociyay wixii ummaddu ay wada lahayd runtii dadkuna ma wada xuma labada beeloodna ma wada xuma in baa wax qaloocisay laakiin waxaan nidhi bal ha dareemaan maadaama ay dareemi waayeen oo ay ka hadli waayeen xaq darrada jirta waxaa nagu kalifay inay dareemaan oo ay ogaadaan sida wax u qalloocdeen taa la ajligeed baan u soo casuumi weyna waanan halkaasaan ku haynanaa inta ay ka hadlayaan waxa xumaaday laakiin boqor sida caadada ahayd aan la wada socono gabagabada waxaan ku weydiin lahaa marka shirarka reer Soomaaliland qabsadaan la soo gunaanaday beelaha dhan si caadi ah loogu yeeri jiray shirkan muxuu kaga duwanaa wuxuu kaga duwanaa shirkan uu ka daacadsanaa mujaamalay ku wada socon Soomaaliland intii hore laakiin shirkan waxa weeyaan shirkii xaqiiqada waxa ay beeshu markay isugu tagtay buurta Gacan Libaax options badan baa la soo gudboonaaday Soomaaliland inaga ku soo tacabnay inaga u dhimanay inaga wax walba u soo hurnay ma daawan karnaa ma dumin karnaa maxay noqotay inaan tacabkii la soo galay aan waxba la yeelin laakiin la toosiyo taa la ajligeed waxay noqotay caadadii badnayd ee dadka ku jirtay iyo caadifadii badnayd ee ummadda ku jirtay inaanu ku raali gelino bal cagta u dhiga dadkii aynu walaalahayn oo wax wada lahayn waynu wada hadlanaa haddii ay garowshiye keenaan waynu wada hadlanaa haday garowshiye keeni waayaan tala kale isugu iman marka taa la ajligeed bay ahayd wax xumaan oo kalena ma jirin Luqmaan Maxamed Farax Bulsho TV Hargeysa